waa tahay dhegayste ku soo dhowow bandhigeenna aan weligiis laga xiisa dhicin ee sahanka nolosha waana ku faraxsanahay inaad nala dhegaysatid riwaayadda xalqadii la soo dhaafay maryam waxay isku dayaysaa inay ninkeeda cali ka dhaadhiciso inuu ka caawiyo shaqada guriga hooyadiis ayaa u soo gurmatay oo ka xanaajisay maryam maxaa dhici doonaa xalqadan sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha waxay isu diyaarinayaan inay sameeyaan howlgal lagu soo qabanayo hubsi qarsoodi ah oo sharci darro ah lagu soo geliyey talow ma ku guulaysan doonaan ka dhegayso halkaan isla hadda si aad u ogaatid kuwaas iyo kuwo kale oo badan oo ku saabsan xalqada sahanka nolosha subax wanaagsan mooge waan arkaa saaka niyad fiican ayaad ku soo kacday waxaan oo wanaagsan xaawakiin xaaskaygii rumaaday niyaddaydu way faraxsan tahay aad iyo aad bayna u faraxsan tahay horumarka aan gaadhnay awgeed ama aan anigu gaadhay de waxaan anigu gaadhana adna waad ila gaadhay horumar mooge haa horumar laakiin adigu middaas hasku kurbaynin wuu furan yahay soo gal gudaha subax wanaagsan xaawakiin iyo mooge fiican daahir walaal soo dhowow oo shaah ma kuu shubaa maya hooyo ayaa cunto i soo siisay oo warkaad sheegaysid waad ku faraxsan tahay miyaa waryaa meeqa sana ayaa jirtaa horta soo ma ahayn inaad guri aad leedahay aad adigu ka soo kacdo oo xaaskaagu cunto ay kuu kariso beddelkii aad hooyadaa dhibi lahayd hooyadaadan miskiinta aad mar walba ciqaabaysid war wax ayaan isku xisho mooge maxaad u qaraartaa horta mar kasta xaawakiin ninkaaga maxaad siisay saake maliin baad cabsiisay war waannu faraxsanayn intaad adugu aadad noo iman ka hor aad baannu u faraxsanayn labadayaduba farxaddayadaad qasaysa xaawakiin hooyo ayaa midhahan igu soo dhiibtay carruurta mahadsanid daahir walaal oo miyay ii xanaaqsaneed hooyo xanaaq maxay kugu xanaaqaysaa xitaa hadday kuu xanaaqsaneed iimay sheegin aniga waa wax fiican walaal waad iga farxisa haddayba hooyo ii xanaaqsanayn heesteennii ciidanka ilaalada xeebaha ayaa raadiyaha ku jirta ballandheereeya codka mashruucaas ciidanka ilaalada xeebuhu waa mashruuc gebi ahaanba lagu khasaarinayo dakhliga dawladda maya ma aha shaqo aad u wanaagsan ayaan haynaa sooma maqlin maalin dhowad inaan soo badbaadinay abshir nin noolo maxaa aragti kuu laaban ma waxaas ayaad shaqo wanaagsan u taqaannaa in la soo badbaadiyo budhcadbadeed abshir waa ilmo yaroo budhcadbadeednimo raadsaday ma wax laysku hawlaa ma waxaasa shaqo u taqaannaa adugu oo aad leedahay waa shaqo sharaf leh miskiin haye ha u bixin mar dhow waxaad ku hadaaqi doontaa magaca ciidanka ilaalada xeebaha maanta howlgal ayaan fulinayaa haa maxaa aniga iga quseeya orodoo dee oo biyaha ku dheeldheela dhuumaalaysi oo ku dheeldheela waxaad tidhahdaan howlgal baan fulinaynaaye intaad biyaha ku dheeldheeshaan sidii carruurta muxuusan wanaagga kuugu muuqna mooge waxaan ka wadaa mashruuca ciidanka ilaalada xeebaha waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada in shaqo abuur looga dhigo dhallinyarada iyo in looga hortago kalluumaysiga sharci-darrada ah naga dhaaf yaqa indhahaaga kala fur si fiican wax u arag indhahaygu way furan yihiin sidaa aad u jeedidba waan baxayaa halkaan ma sii fadhin doono oo kaa yeeli maayo niyaddayda fiican inaad iga sii qastid
khayr baan u rajaynayaa howlgalkiinna daahir guulaysta walaal adiga iyo tiimkaaga mahadsanid abbaayo waa khasaare aan loo meeldayin waa inay hay-adaha caalamiga ogaadaan inay dawladdu khasaarinayso lacagtaas waxay ahayd in loo isticmaalo waxyaabo badan oo kaleeto horumarka bulshada ah dhallinyaradeenna ayaa ku mashquushay oo burcadbadeeddii baaba cabsi gashay marka waa wax fiican oo mudan in lagu faano u malayn maayo si kastaba ha ahaatee waan sii baxayaa anugu hadhow baan is arkaynaa waxaan kuma faraxsanay cabdinuur hayehe adiga ayay kuu daran tahay aniga shaqadayda maaha arrintaas inaan kaa farxiyo warfaa anigu halkan uma joogo hadda maxaa rabtaa marka ma aha in laysku keen arko oo waa og tahay bal ka waran haddii ragga mooge mid ka mid ah uu isku keen arko ha ka warwarin warfaa middaas waa mabsiinaya hadalkayga howlgalku waa sidii aan isku ogayn soo ma aha warfaa hubkii suuqa madow ahaa maanta ayuu soo gelayaa soo sidaas ma ahan waa tahay maxaad sidaan u yeelaysaa cabdinuur marka maxaa hadda ma dhakhtarkayga cilmi nafsiga ayaad rabtaa inaad noqotid oo aad iwaanisid warfaa maya ma raba sidaas hagaag sababtoo ah dad badan xaajooyinkooda iyo riwaayadahooda ayaan dhagaystaa intaan xabsiga joogo warfaa markaad xabsiga geshid ayaad waxaasoo dhan iiga sheekayn doontaa maxaad sidaas ilaa hadda iigu hanjabaysaa mar hore ayaan ku siiyey wixii aad rabtay badeecadu maanta ayaa imaanaysaa qorshuhuna waa sidii aan markii horeba kuu sheegay alla ilaahay waa hagaagaya heer sare hadalkaasu okey maxaad ula heshiin la'dahay mooge marka waan hubaa inuu lacagta qaar ku siin karo wuu ku farxi doonaa inuu weliba kaa farxiyo war imaqal warfaa wax heshiisa lama gelayo isaga mooge wuu ogaan doonaa magacayga kan qabiilkayga iyo kan awowgayga shanaadba markaan shaqo adag ka qabto middaas waa igu ballan warfaa hadda iska bax adigu cidna ha u sheegin arrintan warkaygu waa cad yaha soo ma ahan aniga waxba haya caga juglayn cabdinuurow haddii cidi ogaato inaan kula hadlaayay way ii dhammaatay sidaas ayaan kaa rabaa nin ragaad nabaday gaarigan ayaa nacay waa ay dhibay maryaney kaalay oo quraacdu way kaa qaboobaysaaye maryan may maqashaa waan ku maqlaa cali haye fariiso quraacda ayaan kuu soo gurayaa inta aysan qabobin aad cuntide gaajo ima haysa caafimaad ku cun adiga cali shaqada ayaan aadayaa nabaday laakiin shaqada hal saac ayaa kaaga harsan maxaa u cararaysaa maxaa jira maanta abateed ma haya maanta oo ma waxaad u yeelaysaa cashadii ay xalay hooyo inoo keentay canjeeradanna hambadii xalay ayay ka soo hartay miyaa masaas ayaad ka waddaa runtii ma raba inaan ka hadla arrinkan cali maryan biliis adigoo xanaaqsan shaqada ma aadi kartid waa inaan ka wada hadalnaa arrinkan si aan u xalinno ma raba inaan caraysanaado anigoo shaqada joogo marka ma raba in aan hadda ka hadla arrintan oo laakiin sidee ku ogaatay adiga sheekadan marka ay dhammaato kadib oo aad shaqada tagtay inaad xanaaqi doontid cali waxaan wada hadli karnaa markaan soo laabto oo keliya maya marka aad soo laabatid hadhow waxaad idhihi doontaa tabar uma haya hadal waan daalanahay marka hadda ayaan ka wada hadlaynaa inta aadan bixin oo aadan daalnayn ma hubtaa oo ma waxaad rabtaa inaan ka wada hadalno arrintan maankaaga ma u furaysaa marka haa dabcan waan u furayaa maankayga waa inaan hadda ka wada hadalnaa si aan u dhammayno wax kasta adoo xanaaqsan inaad baxda ma rabi haye waayahay waxaad iiga bilowdaa sida aad hooyadaa ugu sheegtay in shaqada lagaa soo ceeriyey weliba annagoo isku ogeyn in aadan u sheegin aga oo waa maxay waxani sabab maxay tahay sababta aad waxaan iigu samaynaysid yaa gaarigan doqonka ah cabdinuur ma adigiiba waxaan daasadda gabowday dhex yoorura iga leex mooge war badan iyo wareer anigu wakhti uma haye sidaas ha noqonin nin yahoon may maqlaysaa cabdinuur maxaad horta ugu xanaaqsan tahay dadkeenna ladan adiga ayaa ikhtiyaarkaa lahaa adigu halkaas joog mooge oo weligaaba iska faan
maalin dhaweyta ayaan ku arkaya adoo cagta maalaya haddana waxaad saaran tahay daasadaadii oo xataa aan istaarmi karin cabdinuur aan kula taliya waxaad soo qaadataa dameer midkaad doontidba qaado oo ma garatay ayaa kaaga xoog badan oo maaragtay kaaga raqiisan oo welibana dee hagaajin kaaga baahnaynoo haddii alla idmahayo wakhtiga qoraxda kuluna ku anfacaysa dameer uma baahni adigu dameer ma haysataa mooge sababtoo ah mar dhow waad u baahan doontaa haba ka yaabin xataa 1 sano soo socota ma dhacaysa middaasi anigu inaan dameer fuulo laakiin adiga ayaa mudan ninka dameerka fuulaya inaad noqoto 1 sano waxaa laga yaabaa inay ka dhowdahay sida aad u malaynaysid amaba ay kula tahay mooge cabdinuur xanaaqii ayaa kaa batay adigaa faqriga ku soo baxaysid saaxiibow laakiin dee adiga unbaad dee haddii alla idmahayo doortee iskaga raaxayso faqriga iyo lacag la'aanta iyo maaragtay wax la'aanta iyo shiidnimada war mooge ayaa tahay lacagtu ma aha wax kaste ee mooga arrintaas la soco adigu warkaas waxaa ku calaacala dadka aan lacagta haysan sida adiga oo kale oo dee sagxadda ku lugaya marka adigu saa u nooshaha mooge adigoo og in hubka aad suuqa madow ku gadaysid ay khatar weyn gelinayaan bulshadeenna waa war xiisa leh faqrigu runtii dadka wuxuu ka dhigaa awliyo cabdinuurow hadda ma intaad anigay soo hor istaagtay ayaad welibana i xukminaysaa shiidnimada ku haysata awgeed iga leex moogow waan sii baxayaa waan fiicnaan lahayd inaan gaadhigaaga kuu kiciyo laakiin saaxiibba ma nihin hadda waxba igama kaa gelin orodoo dad kale raadso oo naftaada daryeela cil iyo care i hayso weyna waa inoo tahay markaad khasaare la kulantid mooge waan sugi kari la ahay inaan arko sida uu wejigaagu u ekaan doono markaas balan aragna mooge qofka qosolka ku dambayn doona aniga iyo adigaba diyaar ayaan nahay ayaan u malaynayaa xasan aniguba sidoo kale ayaan isleeyahay hibo marka waxaan ku heshiinay inaan kooxda kale ee ciidanka ilaalada xeebaha aan u sheegno waxa uu howlgalku ku saabsan yahay marka aan badda gudaha u sii galno si aan u gaarno meel aan khad ka jirin haa xaqiiq waayo kama bixi karno in muqallisiintu maqlaan arrimaha ku saabsan howlgalkeenna haa waxay ku wareeri doonaan meesha laga soo galay xasan waad ku mahadsan tahay inaad badda noo soo raacdid oo aad hoggaamisid kooxdan dhib ma laha waan ku qasbanaa inaan ku caawiyo wax aan hawshan uga baaqan karnana ma jirto maanta taariikh ayaan qoraynaa haa taariikh ayaan qoraynaa maanta waa maalintii ay mukhallasiintu ogaan lahaayeen cidda dhabta ah ay yihiin ciidanka ilaalada xeebuhu waxay ogaan doonaan inay dhab naga tahay inaan ilaalinno biyaheenna daaqsan go'aankii saxda ayaad qaadatay hibo markii aad go'aansatay inaad joogtid oo aad naga caawisid la dagaalanka iyo ka hortagga dembiyada daaqsan waxaa fiicnaan lahayd inuu sidaasoo kale iila fahmo abshir way fiicnaan lahayd inuu ku markhaati furo madaxa burcadbadeedda oo weli ma sheegin miya hibo maya cabsi saa'id ah ayaa ka muuqata waxbuu ka cabsanayaa ma waxaad u malaynaysaa in madaxa burcadbadeeddu u tegey oo ka cabsiiyey ma aqaana runtii ma waxaad u malaynaysaa inuu ku dhiiran karo inuu inta uu u dhuunta gurigooda ugu tago uu kula soo hadli karo ninkaasi wuu waalan yahay wax kastana wuu samayn karaa waa runta arrintan way qasan tahay wallaahi waan ogahay abshir sii wakhti iyo firaaqo uu ku soo bogsado oo uga soo fikiro waan hubaa inuu mar dhow soo caqliyaysan doono yaa oghee si kastaba ha ahaatee dhib kasta xilligiisa ayaa la xalliyaa maanta waxaa madax xanuun nagu haya mukhallasiinta xilligii waa la gaaray inakeena aan soo qaqabannee maryam anigii aamin anigu hooyaday waxba uma sheegin xitaa aabbahay uma sheegin in shaqadii layga soo ceeriyey sidee ku ogaatay marka iyadu ma aqaano laakiin waan soo weyddiin doonaa ha weyddiin haddii aad hadda weyddiisid waxay dhihi doontaa gabadha ayaa isu kaayo diraysa aniga iyo wiilkayga marka waayahay maxaa rabtaan kuu sameeyaa xabiibti ma aqaanno laakiin runta haddaan kuu sheega aniga kama bixi karo in sadohday ay reerkeenna soo faragashato soo faragashato ah maxaa kaa qaldan cunto oo keliya ayay inoo keentay weliba waxaan u malaynayaa inay si kal iyo laaba u soo hagaajisay cuntada
sababtoo ah waxaan arkay waxa saliid ah ay cuntada ka muuqatay. waa maxay sababta ay si lama filaan ah noogu soo gashay maxaysan aniga iila shaqaynaynin aniga ayaa guriga marwo ka ah. waan ku fahmayaa waan u sheegi doonaa inaysan sidaas samayn mar kale. way ogaan doontaa inaan aniga ahay qofka sidaas yidhi. maxaa rabtaa inaan sameeyo maryam? waan ku baryayaa wax ii sheeg. waan samaynayaa ma raba in aan ku dagaalanno arrinkan mar kasta. aniga laftayda ma raba inaan isku dagaalno arrintan. marka maxaynu samaynaa waayihii? waxba kuma dhahayna ayada oo waxaan rajaynayaa in aysan mar dambe samayn doonin arrintan. shaqada ayaa sii aadaya cali nabaday. nabadee gacaliso warwarkan iska dhaaf. ma oggolaan doono in hooyada ayna soo kala dhex gasho. ballan ayaan kaa qaadayaa. waxaan filayaa in wax kasta iyo qof kastoo naga mida uu diyaar u yahay hawshan aan maanta iyada ku guda jirno. haa mooge waryaa warfaa waxaasaa ku meeraysanina isdiyaari. haye mudane. maxaa ka qaldan ninkan aad keentay? ninkee ma warfaa? haa si buu u sirgaxan yahay tan iyo markii uu yimid meeshan. aniga caadi ayuu iila eegyahay. aniga ilama eka runtii mana jecli dadka warwarka badan marka howlgalka la aadayo. isteji waa nin fiicane. mar kale aan ku weyddiiye mooge ma ku kalsoon tahay ninkan warfaa la yidhaahdo? sidaan horey kuugu sheegay anu qofna kuma kalsooni laakiin waxaan ogahay inuu warfaa daacadnimadiisa la iibsan karo marka aniga unbaa ka iibsaday dee iyaga. daacadnimo lacag laguma iibsan karo mooge. xusuuso in raggaasi ay madaxa kaa goyn rabeen oo ay cabdinuur u samaynayeen. meeqa lacag ah ayaad u malayn kartaa inuu siiye raggaasi? aga horta maxaad ii xasuusisaa wixii tegey? aniga taxaddar unbay iga tahay. nooca ganacsi ee aan ku jirno kama bixi karno inaan qalad samayno. keliya waa inaan la shaqaynaa dad aan ku kalsoonnahay. adigu ma ku kalsoon tahay ragga aad adigu keentay? 100%. waayahay anigu sidoo kale waan ku kalsoonahay warfaa. marka isdeji wax kastaba khayr ayay ku dhammaanayaan. teeda kale ma jiro qof og qorshaheenna ee hadda shaqada ma qabannaa saaxiibow. iga daa warka badane. haa mooge hadda ayay baxayaan oo sida aan rajaynayo waa inay ku soo laabtaan muddo aan 3 saacadood ka badnayn. hadda waxaan ka hadlayaa waa sidaas. wakhti wacan wuu soo socdaa madaxa burcadbadeedow. ayaamihii wacnaa way soo socdaan. xaqiiq weeye middaasi. saxanka nolosha. bilan sawxaalku ma fiicna hooyo soo ma fiicna maxaad ka qabanaysaa isbitaalka maanta? isdeji maryam waan fiicanahay hooyona way fiican tahay. marka ma aniga unbaa igu soo booqatay isbitaalka? maya laakiin waan ku soo maray. waxaan isbitaalka keenay arday xanuunsanaa. ma loo adeegay bukaanka? haa waa loo adeegay. marka hadda iskuulka ayaan ku laabanayaa sababtoo ah hooyadii ayaa u timid. haa waayahay adiga ii waran ma fiican tahay? haa waad ka labalabaysay jawaabtaas abbaayo. muxuu yahay dhibka ku haysta? waa sodohday. maama cali maxay kugu samaysay? arooskeenii xataa hal bil kama soo wareegin oo durbow wayna soo faragelisay. calina shaqadii waa laga soo ceeriyey. yaa rabbi waan ka xumahay middaas. dhibku kaas ma aha. marka hore ma ahayn in aan cidna u sheegno arrintan laakiin inta noo timid ayay cunto noo keentay. ma aaminaysaa middaas? cunto inta ay soo karisay ayay digsi kulul ku keentay weli. isdeji maryam wanaag unbay waxaas u samaynaysaa. maya bilan haddii ay wanaag sidaas u samaynayso aniga ayay ii soo sheegi lahayd. abbaayo waan ku jeclahay laakiin waxaa u malaynayaa inaad ka badbadinaysid. cali sidaas ayuu u malaynayaa isna laakiin waan aqaanaa maamadaas. kama badbadinaayo. arrintan waa dhib bilowgiis. hadalkayga meel ku qoro. maamadaas dhib ayay keeni doontaa. qalbigayga ayaa sidaas ii sheegaya. waayahay
akhyaaray dhegaysta hadda waxaan idiin sheegi doonaa waxa uu ku saabsan yahay howlgalku haye maantoo dhan ayaan isweyddiinayay waxa uu ku saabsan yahay waxani oo waxbaan isdhex maraynay oo aan isku sheegnay hagaag hadda waad joojin kartaan waxa aad isla dhex marayseen marka howlgalka aan soo samayn rabno waa mid aan ku joojinayno dadka mukhallasiinta ah oo ma dad baa si qarsoodi ah loo soo geliyaa magaalada dad ma aha hub weeye waxaana loo soo sheegay in ganacsi uu ka socdo biyaheenna daaqsan hub ayaa si qarsoodi ah loo soo geliyaa daaqsan yaa rabbi bal ka warran haddii ayna soo xabadeeyaan waan u soo diyaargarownay middaas oo sow muddo dheer tababar ma noo socon haa tababar waan haysanaa anigu waxaan dhihi lahaa waa inaan mukhallasiintaas barnaa cidda ay yihiin ciidanka ilaalada xeebaha waan kugu raacsanahay ma oggolaan karno in hub si qarsoodi ah loo soo mariyo baddeenna haa bal qiyaas sida ay daaqsan noqon doonto haddii qof kasta uu si fudud hubka gacanta ugu galo haa ma oggolaan karno in hubka uu gacanta u soo galo dad aan mudnayn cabsi ayaan la gariiraa markii aan ka fikiro hubkaas oo ay carruur gacanta ku dhigeen uma baahni in intaasi ka badan layga dhaadhiciyo waan baqayaa laakiin diyaar ayaan u ahay in aan ka sii mid noqdo kooxda ka talisa saamaha iyo amniga daaqsan waxaan wax yar u jirnaa goobtii ay ku ballansanaayeen mukhallasiintu waxaan u malaynayaa in kuwaasi ay iyaga yihiin bal fiiriya halkaas waxa ka muuqda haa iyagii weeye waa kuwaas inakeenaan soo qaqabanaya inakeena haa soo gal gudaha ii warran mudane guddoomiye see tahay cabdinuur maxaan kaa caawiyaa wax wara ma ka hesha mudane guddoomiye meesha ay waxu marayaan ciidanka ilaalada xeebaha cabdinuur wax saacad ka yar ayaad iga maqnayd maxaad ka kurbaysan tahay guddoomiye waxaan rabaa in mukhallasiintaas la soo qabto welibana waxaan rabaa in laga abaalmariyo dembiyada ay u geysteen dadka deegaankeenna waa laga abaalmarin doonaa mukhallasiintu ma oga ciidanka ilaalada xeebuhu inay ku daba jiraan marka waa la soo qaban doonaa iyagoo warmooga ah jah allah waan sugi kari la'ahay mudane guddoomiye inaan arko diifta iyo rafaadka ka muuqda wejiyadooda waa hagaag waan filayaa in marka kuwaan gacanta lagu soo dhigo ay digniin u noqon doonto qof kasta oo raba inuu isku dayo ganacsi sharci darra ah oo daaqsan dhexdeeda haa mudane guddoomiye digniin ayay u noqon doontaa arrintaasi waa inaan nolosha ku cariirinnaa si ay u ogaadaan guddoomiye in dawladdu shaqayso xilli kasta kana shaqayso meel kasta waa lagu ammaani doonaa mudane guddoomiye hawsha wanaagsan aad qabatay cabdinuur anigu ammaan xiisa uma qabo waxaa keliya aan doonayaa in aan sameeyo waxa aan mushaharka ku qaato aniga ayaa doortay inaan u shaqeeyo dawladda in dawladda loo shaqeeyana macnaheedu waxay ka dhigan tahay in loo adeego bulshada dabcan haa guddoomiye aniguba sidoo kale aniga ayaa doortay inaan dawladda u shaqeeyo oo isla sababta aad sheegtay aan ugu shaqeeyo inaan dadka daaqsan u adeego guddoomiye waan jeclahay welibana aad ayaan ugu raaxaystaa arrintaas wanaag ayaan dareemayaa waaya cabdinuur hawl baa ii taallo aan doonayaa inaan dhammaystirto waan kula soo socodsiin doonaa isla marka aan akhbaar ka helo howlgalka ciidanka ilaalada xeebaha haddii aan la yidhaahdo haa fadlan sidaas yeel mudane guddoomiye waan ogahay inay shaqo fiican qaban doonaan allah caawa waxaan u seexan doonaa sidii ilmo yar oo xalay dhasho oo kale maadaama aan ogahay mudane guddoomiye in mukhallasiintii ay guuldarraysteen way isku dhammaatay arrintaasi howlgalkani si wanaagsan ayuu u dhacay soo kulama aha xaqiiq weeye warkaasi warfaa nin yahow maalin dhoweyd waxaan aadnay howlgal budhcadbadeednimo oo xaaladdu jiq ayay nagu noqotay oo waan ku soo jabnay haa sidaa darteed ayaan u doorbidayaa ganacsigan suuqa madow mooge ayaana nolosha ii dhib yareeyey runtii anigu waan ku faraxsanay inuu madaxa budhcadbadeedku go'aansaday inuu ku biiro ganacsiga suuqa madow budhcadbadeednimadu way adkaatay
hawshanina markan way inoo sallaxan tahay warraja wanaagga meel iska dhig waxaas nagu soo socda madoonbaa alla maya waxaan dareemayaa sidii aan horay wax ugu dareemi jiray hore ayaanu arkay middan oo kale oo maxaad ka waddaa warfaa kuwaa nagu soo socda waa ciidankii ilaalada xeebaha maya oo maxay naga soo doonayaan nacallaa shaydaan ku yaale waan aqaan waxa dhacaya maxaa dhacaya war bal inakeen aan dhinaca kale u leexanne meel aan u dhaqaaqi karna ma laha wayna hareereeyeen halkaa waxaa ka soo socda doon kale oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebtu anigu xabsi ma geli doono kollayba waa ay nagu soo dhow yihiin nimanku marka maxaa samayn doontaa ma badda ayaa isku tuuraysaa anigu intii aan geli lahaa calool libax badeed jeelka ayaan gelaya uma malaynaayo inaanu badbaadi doono sidii uu u badbaaday nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam oo kaalay doontani kama dheerayn karto middaas kale miyaa uma oggolaan karno in ciidanka ilaalada xeebuhu ay gacanta ku dhigaan hubkani oo dhan waxaani waa meeshii aan bariiska kala soo baxaynay oo raasumaalkeenna uu ku jiray nolosheenna ayaa ku xidhan ma baxsan karno oo waynoo dhammaatay waxay ahayd inaan barto in hal mar oo aan ka baxsaday ciidanka ilaalada xeebaha aysan ka micno ahayn inaan mar walba ka baxsan doono halow waxaan nahay ciidankii ilaalada xeebaha ee daaqsan waxaadna xabsi ku mustaysateen inaad si qarsoodi ah ku soo geliseen hub sharci darro ah siday ku ogaadeen alla maya ma qof ayaa u sheegay hawlgalkan haa way iska caddahay in nala shirqoolay baxar ayaa nala geliyey gacmaha kor u taaga si laydiin arko waa soo soconnaa ha isdhaqaajinina xilligii waa la gaaray deejignaada mukhallasnimo maanta ayay uga dhammaatay biyaheenna ciyaarta ha bilaabato waxaa la gaaray maalintii liis abaalmarin lahaa mukhalisiinta waxay maanta lagu abaalmarin doonaa dembiyadii ay geysteen maxaa dhici doona toddobaadka soo socda ka dhegayso halkan si aad u ogaatid sidoo kale waxaan aragnay inaysan maryan ku faraxsanayn soddohdeed sheekadaas ayay salka ku haysaa su'aasheenna xalqada maanta duuliya cali kalkaalisa maryam waxay dhibaato kala kulmayaan faragelinta cali hooyadii muxuu yahay booska ay soddahdu ku leedahay guurka carruurteeda muxuu yahay booska ay soddahdu ku leedahay guurka carruurteeda fadlan nala wadaag fikirkaaga adigoo fariin qoraal gaaban si bilaash ah noogu soo diraya nambarka 354 ku bilow magacaaga da'daada iyo meesha aad joogtid wayna farxad gelin doontaa inaan fikirkaaga ogaanno waana ku mahadsan tahay dhegaysiga xalqadan ballanteennu waa toddobaadka soo socda isla xilligan nabadgelyo